kulanti wacan wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos idinka soo gudbinayno studio-deena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee Afrika Mareykanka. barnaamijkan ayaan daawadayaal si kooban waxaan u hadli doonaa gudoonkii doorashada ee aqalka ama golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalayto iyo maanta la kala doortay. sida la socoteen baa daawadayaal doorashadu waxa ay dhacday saacado badan kadib markii la isku khilaafay sidii loo ilaalin lahaa ammaanka afisyoone. ciidamo kala duwan ayaa goobtaasi tagay kuwaasi oo looga sheekay in ay isku dhac u yimaado ama ay diriraan. hase yeeshee aakhirkii waxay noqotay mid lagu dhameeyo in sidii la filayay banaanka la joojiyo dadkii ama baarlamaankii xubnihii baarlamaan ee lagu soo kala dhaariyay Ceelwaaq iyo magaalada Galbaharey ee gobolka Gedo. labadaasi kooxood ee kala duwan ee la dhaariyay ayana ahayd muranka ugu weyn uu ka dhashay in ay ka qayb galaan doorashada baarlamaanka ama gudoonka lagu dooranayay. kooxaha mucaaradka ayaa iyagu waxay weyteen 16 qof oo dhinaca Ceelwaaq laga soo doortay kuwaasi oo ay doonayeen in iyagu ay si toos ah u galaan oo ay qayb galaan doorashada. hase yeeshee dhinaca kale taageerayaasha iyo xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna dhinaca kale waxa ay doonayeen in ay ka qayb galaan qolooyinka laga soo doortay magaalada Gedo ee Galbaharey. hase yeeshee aakhirkii waxaa la isla gartay in labada kooxoodba banaanka la dhigo oo aanay fooda soo galin. wareegii kuwada hadaba doorashadaasi ayaa waxa aad ugu horeeyay Xasan Cabdi Nuur ninka lagu magacaabo isagoo ka socday dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ama taageerayaasha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxa ku xigay marka tir ahaan loo eego Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo isaguna dhinaca mucaaradka ka socday. waxa iyaguna ka qayb galay tartankaasi oo markii dambe ka hadhay Aadan Sransoor ninka lagu magacaabo iyo nin kale oo Blacky lagu naanasay. kuwaasi oo iyagu markii ay tartanka ka hadheen ka codsaday markaasi xildhibaanadii goobta fadhiyay in ay ugu shubaan codka oo ay siiyaan Sheekh Aadan Madoobe. waana tan keentay in wareegii u dambeeyay inuu Aadan Madoobe si weyn uu markaasi ugu guulaysto in uu isagu tartankaasi uu noqdo ama uu ka galo kaalinta koowaad. waxaa dadkii ka qayb galay tartankaasi kamid ahaa isaguna xildhibaan lagu magacaabo Cabdirashiid Xidig oo isaguna ka socday maamul goboleedka Jubbaland. hase yeeshee ceeb halkaasi kala huleelay ama madashii ceeb kala tagay markii uu helay 5 cod oo kaliya marka lagu daro codkiisa oo ku noqonaya 6 cod. kaasi oo isagu markaasi candhuuftiisa iyo hankiisiba dib u laqay. dhinaca kale waxa maanta iyaduna la doortay labadii ku xigeen ee golaha shacabka. waxa ku guuleystay tartankaasi qaybta ama aan ilaahay gudoomiye ku xigeenka koowaad gabadha lagu magacaabo Sacdiye Salaad Samatar oo iyadoo horena xildhibaan u ahayd. waxaana kaalinta labaad ama gudoomiye ku xigeenka labaad isaguna ku guuleystay ninka lagu magacaabo Cabdilaahi Xasan Abshiro. siyaasad ahaan ayaa hadaba waxa iska cad in mucaaradku ay si weyn ugu guuleysteen aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. taasi oo laga dheehan karayo markaasi in taageerayaasha madaxweyne Farmaajo in loo run sheegay. gudoomiyaha baarlamaanka cusub waa Sheekh Aadan Madoobe waxa uu hore u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagu madaxweynaha Soomaaliya ahaa waqtigaasi oo xilliga haatan aad uga duwanaa. xilligaasi Soomaaliya waxa faragelin xoog leh ku hayay dalalka shisheeye ee ay Ethiopia ugu horeysay kuwaasi oo madaxda Soomaalida far ugu yeeri jiray amaba amar siin jiray. haddii aynu dib u xasuusano waxa dad badan oo Soomaaliyeed xasuustooda weli aan ka tagin General Gabriel ninkii lagu magacaabi jiray kaasi oo isagu si toos ah talada wadanka gacanta ugu hayay isla markaasina ay taladu uga go'aysay. inkastoo haatan ay si weyn ugu guuleysteen mucaaradku aqalka hoose haddana mucaaradka ayaa sii noqonaya laba mucaarad oo iska soo horjeeda marka uu tartanku soo dhawaado. Sheekh Aadan Maxamuud Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxa uu taageero u yahay Sheekh Shariif oo isagu madaxweyne u ordaya halka Xasan Sheekh iyo Cabdikariim Guulad iyo waliba Saciid Dani aanu waxba ku soo biirinaynin aanu waxba ku soo kordhin karin Sheekh Aadan Madoobe. haddaba su'aasha la isweydiinayo ayaa daawadayaal waxay tahay ma isku xidhan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka cidii hesha mucaarad iyo maxaafidku doonaha noqde iyo qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya in markaasi ay isla shaqeyn karaan oo ay gacan siin karaan oo la oran karayo haddii gudoomiyuhu mucaarad uu noqdo madaxweynuhuna mucaaradka ayuu ka soo baxaya ama haddii gudoomiyuhu uu noqdo maxaafid madaxweynuhuna dhinaca maxaafidka ayuu ka soo noqonaya. xilligii uu Xasan Sheekh madaxweynaha u tartamayay isaga iyo Farmaajo waxa gudoomiyaha baarlamaanka xilligaasi ahaa Jawaari oo isagu mucaarad ahaa.
haddana waxaa guushii ay raacday maxamed cabdilaahi farmaajo siyaasadda aan xasilooneyn ee Soomaaliya marka taasoo kale loo eego waxaa la dhihi karaa ama la oran karayaaba iskuma xidhna gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhu laakiin dhinaca kale marka la eego codadka baarlamaanka ayaa la oran karayaa waxaa muuqata in taageerayaasha farmaajo haruulaha lagu dari karo marka tartanka madaxweynuhu uu yimaado haddaba daawadayaal bal aynu dib u eegno waa kuma Sheekh Aadan Maxamuud Nuur oo Sheekh Aadan Madoobe lagu naanayso Sheekh Aadan Madoobe waxa uu ku dhashay degmada Xudur ee gobolka Boqol 1966 ma laha aqoon maadi ah hase yeeshee waxa uu sheegtay in uu shariicada islaamka wax ka yaqaano Aadan Madoobe waxa uu kamid ahaa ururkii hubaysnaa ee RRA shirkii Imbagati ee Kenya ayaa waxa loo doortay inuu noqdo xildhibaan iyo wasiirka cadaaladda sanadkii 2007 ayuu gudoomiyaha golaha shacabka noqday Sheekh Aadan Madoobe guud ahaan dadka Soomaalida ah ayaa tan iyo shalay waxay aad u hadlayeen doorashada gudoonka baarlamaanka ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho dadkaasi waxa ay u kala qaybsameen muxaafad iyo mucaarad qoloba ay doodeeda gaarka markaasi ay wadato ma jirin ama aad baba u yareed ayaa la oran karaa dad Soomaaliyeed oo markaasi ku ducaysanaya ama rajeynaya in isbedelka cusub iyo gudoomiyaha cusub in Ilaahay uga dhigo mid wanaaga sharafta iyo midnimada Soomaaliyeed ilaaliya isla markaasina aan koox u ahayn gudoomiye ee Soomaali u dhaxa isla markaasina gudoomiye u wada noqda ugu dambeyntii daawadayaal waxaan u rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed kuwa hore u socda oo ilaawa wixii shalay soo maray isla markaasina mustaqbalka berito u tashada oo u tafaxayta waxaa bulshada Soomaaliyeed loogu bishaareeynayaa in saliidda Ashifa oo ah mid ay dad badani ku liibaaneen loogana keenay jiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa hadda la keenay gobolka Minnesota iyo gobolada kale ee Mareykanka haddaba waxay dad badan isweydiin karaan maxay saliidda Ashifa dawo u tahay aan ku bilaabay hurdo la'aanta madax xanuunka wareerka qarowga kor xanuunka xasaasiyadda iyo xanuunada ruuxiga saliidda waxa isticmaali kara daawona ay u tahay qof kasta haddaba saliidda Ashifa ayay bulshada isku raacday inta isticmaashay in ay leedahay faa'iidooyin badan isla markaana markii ay saliidda marsadeen in ay ka bogsadeen xanuuno badan oo in muddo ah ay dawo u raadinayeen anigoo deeq darajo ah ayaa isticmaalay saliidda Ashifa kuna liibaanay sidoo kale dadka isticmaalay ayaa ka falceliyay sida aad shaashada ka aragtaan waxaad ka heli kartaa dukaamada xalaalada ah ee Minnesota haddii aad doonayso in jumlo lagaaga iibiyo fadlan la xiriir taleefanada shaashada ku qoran daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobay barnaamijkaasi kooban oo aanu dib ugu eegaynay doorashadii shalay ka dhacday golaha shacabka ama golaha baarlamaanka ee Soomaaliya tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kala daawadayaal intaynu dib ugu kulmi doono inta ka horeysa waa Cali Xaraar oo dhamaantiin bad kaga tagay sidaa iyo nabad geliyo